maxay tahay dowladnimo war ninka madaxweynaha xaq muxuu u leeyahay ninka xildhibaanka muxuu xaq u leeyahay war qofka shicibka muxuu xaq u leeyahay habarta caanaha gadanaysaa maxay xaq u leedahay tacliintii baa xumaatay cid ka hadlaaya male caafimaad baa jira cid ka hadlaaya male cisbitaalada dowladda dad baa baraafid ugu shaqaysta cid ka hadlaaya male ummadda masaakiinta hadduu ka xolaysto berito kafan ka qaadanayo oo kafantu ayan lahayn jeebab aakhiro lacag lala aado munkar iyo nakirna haddaa malaayiin wadatid ayan waxba kaa aqbalayn oo camalkaagii alla kugu xisaabinayo qofka ummadda xadana ilaahay naar buu geynaya wax kastoo lagula kaco wax kastoo lagu sameeyo dhac kastoo la dhaco ummaddan habad wax waa iska aamusan yihiin sababtoo ah dad midaysan ma aha waa reer waa jees waa qabiil caqliyad ma laha wax lama akriyo messajka ay helaanna waxa weeyaan youtubera aan alle ka baqayn oo karaahiye ka hadla oo qabiila waxaan hadda ku soo dhawaynayaa oo hadalka siinayaa walaalkeen maxamed cabdi caynab oo kooxda samatalis sida ay isku heshay oo meesha tan isugu soo xirantay iyo ujeeddada aanu isugu nimid waxa isku kaayanuday oonu isugu soo xirannay inaan la wadaaga walaal maxamed ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء رقية واد يا أصحابتك كلتو أو سمتلس مقعودي يوم الصوماليات قارها بنتلان ومديدا وحاني ذكو سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول محمد عبد العنبة وحان جعل هاي إن بريفير إذن كسيو كوحدة نذا samatalis sidee bay ku aasaasatay ee maxay u taagan tahay ujeedadeedana maxay tahay runtii koox oo marka hore istiqiin ma nihin adduunkuna maanta communicationka iyo medyaduna waxa weeyaan waa wax oo aada u horumaray waanu isa soo jilaabanay qof facebook wax ku qora qof idaacad ka hadlay qof joornaal meel ku qoray kolba qof walba fikirkiisa ayuu mujtamaca isagoo inta kale aan garanayn oo la wadaagay sidaas baana aanu anaguna isku barannay aniga ninkii kuwa soo bartay wuxuu ahaa cabdirasaaq annaga waxaan bartay ruqiyo cabdirasaaq suleymaan saas dad isugu yimi baanu ahayn waxaana naga dhexeeyey dareen iyo laxajaclo iyo kalsooni isku qabid iyo dareenka ummaddanada iyo dalkanaga aan u qabno ayaa horta isu kaaya keenay taas oo dhibka soomaaliya guud gaar ahaan dhibka ka taagan gobolladii aanu ka nimi ee dhanka waxbarashada caafimaadka dowlad wanaagga cadaaladda horumar la'aanta dhalinta maaragtay bilaa rajada ah oo badaha ku dhimanaya in aanu isla qabno dareenkaas ayaa isu kaaya keenay kadibna waxaanu garanay in koox la yidhaahdo samatalis wanaag sheegaysa aanu ummadda aanu u soo jeedino baraarujin tusaaleyn war sida aan ku jirro sida ka fiican baa dhici karta maxaa ina haysta maxaa ina ka khaldan see uga bixi karaa tala wadaag ma nihin koox dan gaara wadata siyaasad gaara wadata xildhibaan raadinaysa mucaarad ah xisbi ka mid ah ma nihin waxaan nahay muwaadiniin ee ka go'an tahay in dadka like mindedka ama shicibkooda inay baraarujiyaan war xaaladdan aan ku sugannahay 34 sano waxaa possible ah mid kaloo ka fiican inaynu helno laakiin waa markii ummaddu ay garato dowladnimoy maxaa tahay
waddankeena jiilka ku nool siyaad barre markuu qabsaday dictator buu ahaa dagaal sokoye warlords buu ahaa kadib waddankeennii waa kala qaybsamay meel kasta group baa ku habsaday dadkaas maamul goboleedyada haysta iyo kuwa haysta federaalka ma ay noqon dad ummadda garanaya ummad dagaal sokeeye gashay oo dictator haystay sida dhibkaas dadkeenniina waxa weeyaan waa dhibaatooyin badan bay isaga sabraan marka annaga ujeedanadu waxa weeyaan baraarujin wanaag sheegid tala bixin xataa maamulada dowladda soomaaliya ka jira iyo kuwa puntland ka jiro afkaar fiican inaanu siino warsaatan maaha saatanaa ku habboon shicibka in ay gartaanin dowladnimo maxayd ujeedadanada noogu weyn oo aanu rabno inaanu shicibkanaga la wadaagno soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan puntland waxa weeyaan dowlad wanaagay maxaa tahay shicibku markay gartaan markaas iyaga ayaa waxay samaynayaan markaa muqaarana isu fiirinaya wax hadda ay ku jiraan iyo sahanka aanu rabno inaanu ummaddii aanu barro marka walaalayaal qof kasta oo soomaaliya qof kasta oo soomaalinimadu ku weyn tahay waa u furan yahay inuu xubin ka noqdo samatalis marka waa ka baxaya hadalka waxaan ku celinayaa xiriiryaha walaal ruqiyo waana iga intaas warbixintii wacalaykum salaam walaal maxamed baad ugu mahadsan tahay sidaas kooban oo aad ururkeena samatalis iyo ujeeddada ay dadkan walaalaha isugu soo xirmeen iyo dareenkii isku keenay aad inoo ku soo koobtay dadka Soomaaliyeed meesha ay maanta yaalaan iyo dayaca haysta maxaa sababay maxaa xal noqon kara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقية ولا وما سنتهاي horta su-aashatan dayaca Soomaali guud ahaan haysta ama gaar ahaan gobolkan Puntland oo aan ka soo jeedo horta ilaa iyo 2011 anigu maqaalo ayaan qoray maqaaladaas oo u badnaa wacyigelin laga bilaabo Faroole markii la doortay waxaan u qoray warqad dheer oo aan leeyahay haddii aan madaxweyne ahaan lahaa Puntland waxaan samayn lahaa qodobadaas haddii noqoto shaqo abuur haddii noqoto dowlad baarlamaanku iyo maxkamaduhu kala baxsan yihiin haddii noqoto shaqada dhalinta loogu abuuro warqadahaas waan hayaa haba kama naasacadaan qodobadii aan rabay oo aan markaa arkayay gaas baa yimi haddana warqad kalaa u qoray dheer waan hayaa warqadaas isla intii Faroole aan kula dardaarmay oo dowlad wanaagga ah shicibka in loo naxo waxa weeyaan waxaan uga jeedaa haddii aan in ilmaha Soomaaliyeed ama midka oo reer Puntland laga fekero mustaqbalkiisa galaaskee wax ku baranaya dugsiga hadduu ka baxo secondary hadduu aado jaamacad hadduu aado maxaa u shaqo ah maxaa u mustaqbala mar kasta waxaas baan qoray gaas waxaa bedelay Sayid Cabdullaahi Deni isla warqadii baati u qoray wixii intaas aan qorayay wax iska bedelay haba yaraatee ma jirto allah arrintii wax iska bedelay wixii ilaa iyo 2011 aan waday ma jirto marka aan mulaaxado sameeyeyna waqtigii Faroole wuxuu ka fiicnaa waqtigii gaas wuxuu ka fiicnaa waqtigii koowaad oo Sayid Cabdullaahi Deni waqtigii Sayid Cabdullaahi koowaad wuxuu ka fiicnaa waqtiga hadda oo Sayid Cabdullaahi tu macnaha waxaan arkaynaa in dadkeennu noloshoodii sanadba sanad ka dambaysa waxbarashadoodii caafimaadkoodii shaqo abuurkii qualitigii tacliinta nabadgelyadii cadaaladii dowlad wanaaggii in sanadba sanadka ka dambeeyo
uu kasii xumaanayo meesha adduunka sanadba sanadka uu ka dameeyo dadku ay kasii fiicnaadaan waxa halkaa iga soo baxday marka 2011 qoraalkii aan bilaabay dadkeenu wax ma akhriyaan inay waxba bedelin ama naseexadii iyo baraarujintii aan waday ee waxba iska ee dadkii wax ka bedelin ilaa qaliil in yar mooyaan oo ila soo xiriirta mooyaan ummaddeenu marka waxay u baahan tahay marka dowladahaas aan waxba aan soo kordhin oo qofka marka uu anigu problemka waxaan u arkaa qofka marka la dooranayo wuxuu u tagaa madaxnimada Soomaaliya haddii noqoto ama maamul goboleedyada kale haddii noqoto ama Puntland haddii noqoto waa privilege inuu ka xooleysto inuu ka danaysto laakiin qof maskaxda ku haya in uu ummadiisa u adeego oo maanta meesha shicibku uu joogo ee berito ay ka fiicnaadaanin fishinkaas qof leh aniga weli ma arag iyaguna shicibkuna waxay dowladnimada u haystaan sida ay ku dhaqmayaanin madaxda Soomaaliya ama federaalku ama midaan oo gobolada ama midda Puntland in qofkaas markaa madaxweynaha noqday uu qofku rabana wasiir ka dhigo ku raba jeneraal ka dhigo dadka ehelkiisa ah qaraabadiisa ma fahamtay oo wax oo xisaabtana ay jirin dadkuna saas ay aaminsan yihiin annaga marka samatalis waxa isu kaaya keenay waxa weeyaan bal marka horeeto shicibka in aanu u macnayno war inay saatan ahayn ee shicibku uu yahay shicibka powerka leh oo iyagu ay dhahanin saatan nama qabato dalkan annagaa leh marka ujeedadanadu waxa weeyaan mawaadiicdanadu waa badan doonaan afkaartanadu waa badan doontaa exampladu waa badan doonaan baraarujintu waa baran doonaa yani maanta bilownay maanta wax kasta inay hagaagaan long term baan ku talagaleynaa bal ummaddu in la fahamsiiyo labada qof oo Soomaalida meediyada haysta waxa weeyaan oo ummadda meeshii wax looga sheegayay waa wadaadada waa dadaaleen tabartood laakiin wadaadadu kama hadlaan dowlad wanaag kuma dhiiradaan waxa dowlad wanaagu yahay kama dhiiradaan cadaalad darrada kuma dhiiradaan xoolaha dadweynaha la dhacayo kuma dhiiradaan u fahamtay wacyigoodu badanaa wuxuu u badan yahay aakhiro waxaa jira cadaab iyo naar dadku masaajidada waa buuxaan laakiin diin laguma camal falaayo marka haddii diin ku camal fali lahaayeen waxa weeyaan ma dhacdeen in ay ku jiraan in xaqirnimadan ay xaqiran yihiin tacliintii baa xumaatay cid ka hadlaaya male caafimaad baa jira cid ka hadlaaya male cisbitaalada dowladda dad baa baraafid ugu shaqaysta cid ka hadlaaya male ma fahamtay halkii galaas waxaa ku jira 70 arday marka xalku muxuu noqonayaa xalku waxa weeyaan war in ummadan Soomaaliyeed ay u soo jeesato dalkooda in reer Puntland shicibkan loo kala qoqobay qabiilka qurmay oo iyagoo dhanba ay isu arkaanin beelo meel wada degan oo bilba beesha kaleeto ee u arkayso cadow iyo aan iska ilaalino halkaasna ee tafaraaruq iyo karaamad darro ee ku dhacday kadibna nimankan xukuma Soomaaliya oo macnayaasha ah ee ka faa'iideystaan oo wax allaaliyo waxay rabaan ay sameeyaan ummadu qabiil wax ma taro xadiiska rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam qabiilku wax ufay oo qurmay waaye ka fogaan marka asbaabta in hayso waxa weeyaan faham la'aan dowladnimada waana midda aanu isu taagnay inaanu ummadanada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aan fahamsiino maxay tahay dowladnimo war ninka madaxweynaha xaq muxuu u leeyahay ninka xildhibaanka muxuu xaq u leeyahay war qofka shicibka muxuu xaq u leeyahay habarta caanaha gadanaysa maxay xaq u leedahay ee markaa dhahanin saatanna ma qabato oo ay ka gegishaan dulmiga hadda waxa weeyaan wax kastoo lagula kaco wax kastoo lagu sameeyo dhac kastoo la dhaco ummadan habad wax way iska aamusan yihiin sababtoo ah dad midaysan ma aha waa reer waa jees waa qabiil caqliyad ma laha wax lama akhriyo
message-ka ay helaanna waxa weeyaan youtuberra aan alle ka baqayn oo karaahiye ka hadla oo qabiil ah youtuberradu ee ku guulaysteen oo markay dalka yimaadaan sida loogu soo bambaxayo marka waxa weeyaan waa majaalka keliya oo ummadda u furan oo ku madadaashaan tiina dad xun baa helay oo qabiil iyo ummadda soomaaliya inay isdhacdo iyo in la kala fogaado le ka shaqeynaya marka annaga hadda youtube aanu samaynay samatalis la yidhaahdo wanaag baa sheegaynaa soomaalinimaan ka hadlaynaa dowladnimaan ka hadlaynaa dowlad sharci ku shaqaysaan ka hadlaynaa waxaan raadinaynaa baadigoob ugu jiraa bahalkan la yidhaahdo gaarabidhaanka oo kaymaha ku nool roobku markuu doo nalka yarka ah leh oo keligiis nalku isu ifiyo marka soomaaliya waxaa ka buuxa gaarabidhaan fara badan dad oo wadaniyiina ka buuxa dad wax kala garanaya ka buuxa dad ahlu xikamaa ka buuxa laakiin sida gaarabidhaankaas keligiis iftiinkiisu uu marayo kayda ifkiisu wax ma taro cidna ma ifiyo laakiin waxaanu rabnaa dadka noocaasa oo ahlul xikamka ah oo wadaniyadda leh oo tuugga aan ahayn oo laaluushka aan qaadan oo alle ka baqaya oo og inuu ummadda masaakiinta hadduu ka xolaysto beritoon kafan ka qaadanayo oo kafantu ayan lahayn jeebab aakhiro lacag lala aado munkar iyo nakiirna haddaa malaayiin wadatid ayan waxba kaa aqbalayn oo camalkaagii alla kugu xisaabinayo qofka ummadda xadana ilaahay naar buu geenaya marka waxaan walaalayaal doonaynaa war in aynu dowladnimo haddii aynu dowladnimada fahmno oo wacyigelintaas aanu wadno oo dadku inta damiir kale inta guriga markay galaan habeenkii qolka ku ooya dowlad xumada iyo dayca dadkeena haysta waa soo gabagabeynayaa walaalayaal ujeeddada aanu u taagannahay waxa weeyaan in gaarabidhaankaas kala firiirsan aanu ururino si ay u noqdaan in nalkoodu mid ful ummadda wax u ifiya oo khayr u ifiya oo xataa kuwa maamulka haya oo madaxda maanta joogta ah ruuxoodu ay la mid yihiin ummaddaas inay fikradaas fiican ay wax ka qaataan oo dhaqanka ay ummadda ku maamulayaan ay wax ka bedelaan diyaar baa u nahay wixii tala ah wixii khibrad aan u leenahay ummaddan in wax loo sheego waa naga go'an tahay intaas baan ku soo gabagabeynayaa waana uga baxay asxaabteyda oo calaykum salaam